suudi yalxow iyo ciidamada amniga ayaa ka taagan xaafado kamid ah degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan qaadaya. magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyay waxaa ka taagnaa cabsi laga qabo in dagaal uu ku dhexmaro ciidamo taabacsan Senator Muuse Suudi Yalxow iyo ciidamada amniga Soomaaliya. Gudoomiyaha aqalka sare xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ay ku jiraan odayaal dhaqan ayaa la sheegay in arinta ay ku guda jiraan xalinteeda, balse ilaa hadda aysan natiijo ka soo bixin. Nabadoon Cabdulqaadir Maxamuud Maxamed oo ka tirsan odayaal dhaqan oo Senator Muuse Suudi kala hadlay xiisada ka taagan ayaa idaacadda Kulmiye u sheegay in ciidamo dheeraad ah uu keensaday senatarka lagana cabsi qabo in dagaal uu ka dhaco degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Nabadoon Cabdulqaadir Maxamuud Maxamed ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya inaysan ku degdegin weerar lagu qaado guriga Muuse Suudi Yalxow, halka uu xildhibaankana ka dalbaday inuu joojiyo dhaqdhaqaaqa ciidan ee laga dareemayo xaafado badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho. aniga horta ciidan ma waxaase arko waa ciidan oo Muuse la yimid dhulkaa lagaa qaadaa haa la yiray wuxuu joogaa annaka waa u tagnaa sadhana ciidankan heeyahay wuxuu yidhi dhulkii cawan celinta laygaaga qaado dowladda hantiday iga qabtay iigu bedeshay ee dowladihii jiray ay ii ogolaadeen ina seexana layga xoogi rabahow waxa muga naftirkayna mahan deganaha qof ku noolaanaha qof ku nool walax kaloon galnaba male xabadda ilaahow naga celi qaxi ma kartiinaan joognaa marka ciidamada amniga ayaa ka taagan xaafado kamid ah degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan qaadaya. waana lay xooga magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyay waxaa ka taagnaa cabsi laga qabo in dagaal uu ku dhexmaro ciidamo taabacsan Senator Muuse Suudi Yalxow iyo ciidamada amniga Soomaaliya. Gudoomiyaha garow doorasho ka dhacday ciidan waa la doortay baydhabo doorasho ka dhacday si rabo lagu doorto Somaliland waa isdoortay sababta isku doorto xamarna saasoo kale waa loo taliyaa ida isdoorayso ka bacdi wada tashi la aada ugu yaraan 5 sano la kala maqnaaha markii la soo xiiso oo qof la arko waxay leedahay la ogaad oo qof la arko garaameeda la ogaad oo qof la arko cadkeylaada la ogaad ay qaadeen laakiin hadda anoo ogol in kayga la cuno xeerada gacanta la isla gashto haddana in lay gacan dhaafa guriga ma la iska yeelaa biyo sacbada gacnaha looga dhagaa qof ku qabaysa male ninkan waa yimid qaarkood boorsamoodan qaar bacay wateen qaar dhar la'aan yimideen qaar waxa waaye haddana ma 60 sano nin qaawna ma hay ani meesha aan ku dhashay baabuurta ka timaado gobolada dhexe waxay meesha ku soo degaan qaar waalidiintood ay ko maqaar dhugi leeyahay dhugi oo u xiran yahay noo yimideen ka bacdi waxa aragnay koona dhaafo axmar weyne sare leh dibmana xamar waa keento koriso kibriso kufiso afartaas ka feelada marka la hadlay qofti timaad waa rabnaa noo timaad beledkan dad la'aan ma camir maayo beled wuxuuna ku sheegaa beled wuxuu ku camirmayn hal sidoo u yahay wuxuu reer mataan ayo reer balandilaalo iyo balandilaalo waa gartay reer mataan iyo reer mataan waa reer mataan iyo wax uu qaybin maayo reer mataan haduu وليه وهو المكان warkaas halkaas ku haray kaasoo wakii kama hareer mataan sidee ugu hari karaa reer mataan hawiye waa ka ballaaran yahay reer mataan Soomaa reer mataan waa qayb kamid ah hawiye wixii reer mataan leeyahay ma hawiye oo dhan ay yeelan kara marka hadda waa hawiye lama wixii aniga dhageysan kuleeyahay haye reer mataan waa hawiye والله سيد الله عرتمو بالله عدو روح القيلو والله سيد الله عرتمو بالله عدو روح القيلو أنا بوك وعم بحنين دادو ما لسه شدو
kuwaanayto waa ummadda lagu baabi'inaya ama wax jira maaha war haddaan damco waxoogaa qarannimo inaan u dhaqdo ma loo eedoobi karaa nimankan xamar joogo oo hawiyo oo shilinka un raadsanayaan wax kale aan raadsanayn hadda been maaha maba doonayaan dowladnimo waxay doonayaan inay dekada maaragtay waxyaabaha kismaayaha tay waxay u rabaan wax kale maaha dekadii arboorkeeda hana loo dhiibo wax kaloo ma rabaan shilimaadkan bay u dan leeyihin intaasuu ka odhanaya kii xagga joogay kii kor haddaa u tahay siisa lamid ah markaa nimanka xamar joogo soomaalinimada dhabta oo ka ballaaran waxaan oo dhan oo dadkan oo dhanba lagu soo kasban karo waa in iyaga ay sameeyaan